بسم الله الرحمن الرحيم أيامهن waxaa dalka ka jiray sixir barar aad u baan oo dadkii danyarta ahaa iyo tabaqadii dhexe saameyn weyn ku yeeshay sixir bararkaasi wuxuu saameeyay dhammaan tabaqadii hoose ee shacabka maciishadii oo kor u kacday waxa weeye horta sideedaba wadan kasta oo maanta jira dhaqaalihiisa waxaa lagu maamulaa laba siyaasadood oo kala ah national monitoring siyaasadda lacagta national monitoring policy siyaasadda guud ee lacagta iyo siyaasadda maamulka iyo maareynta maamulka iyo cashuuraha national fiscal policy tax and regulation waxa weeye bank kasto adduunka bank dhexe oo kasto adduunka wuxuu ilaaliyaa lacagta qarankiisa si aanay u qiimo dhicin isagoo sameynaya afar siyaasadood oo ku maamulayo lacagta wadankiisa afartaas siyaasadood oo kala ah national monitoring policy dawladda siyaasadii guud ee dalka wasaaradda maaliyadda ay maamulayso iyo siyaasadii kale ay maamulayeen national fiscal policy-ga oo ay maamulayeen siyaasadda ay maamulayaan bankiga dhexe si uu u socodsiiyo lacagta haddaan isku dayo inaan ka hadlo caqabadaha ugu waaweyn afarta meelood ee ay caqabadu ka jirtaa waxa weeye bankigii dhexe horta meesha ka baxsan oo aan wax maamula haba yaraatee aan ku lahayn bankiga dhexe wuxuu maamulaa hadba lacagta wadan leeyahay wadan kasta waxa lacagtiisa ilaaliya bankiga dhexe shaqadiisu waxa weeye ilaalinta iyo tayeynta lacagta bankiga dhexe haddaan qodobka koobaad soo qaato bankiga dhexe wuxuu sameeyaa britain money wuxuu soo daabacaa lacagta bankiga dhexe wuxuu sameeyaa oo soo daabacaa lacagta wadanka laga isticmaalayo sida Somaliland shilling waxa si joogto ah u maamula maalin kasta lacagta suuqa ku jirta ee wareegaysa waxa kala iibsanayo wax lagu kala iibsanayo tirada taasoo lacagta dhaqaalaha wadanku ku socoto lacagta maalin kasta qaar baa la soo daabacaa oo jeexjeexma qaar baa la xareeyaa marka dhaqaalaha wadanku kor u kaco bankigu wuxuu suuqa ku sii daayaa lacag dheeraad ah marka dhaqaalaha wadanku hoos u dhaco bankigu wuxuu suuqa ka saaraa lacagta badan oo ayuu xareeyaa si bankigu wuxuu kalifaa oo uu raaciyaa sharciga wadanka in wax lagu kala iibsado lacagta wadanku leeyahay marka wax lagu kala iibsanayo si wuxuu tayeeyaa lacagta wadanka bankiga dhexe wuxuu tayeeyaa lacagta wadan kasta lacagtiisu waxay ku xiran tahay hadba inta uu awood leeyahay markaad eegto awoodda Somaliland ee lacagta central bank awood shaqaysan maaha maanta si la doonayo inuu ma shaqeeyo wuxuu noqday bakhaar lacagta uu la dhigo oo laga soo qaado mid kale waxa jirta xeerkii lagu maamuli lahaa xeerkaasina waa xeer aan jirin ilaa hadda waa xeer la doonayo in dawladdu soo curiso oo ay soo samayso si bankiga dhexe tayadiisu kor ugu kacdo oo dee lacagtan uu isagu maamulo halka maanta aanu gacanta ugu jirin bankiga dhexe waa kii laga amaahan lahaa lacagahan ee bangiyada ganacsiga institutionally dhisi lahaa ee ay lacagta ka amaahan lahaayeen halka maanta isagu markuu dollar u baahdo ay bangiyadii kale markuu dollar u baahdo bangiyadii ganacsiga commercial banks uu lacag ka soo amaahanayo taasina waa caqabada ugu weyn mid kale waxa jirta in bankigu wuxuu sameeyaa reserve requirement bankigu dhexe wuxuu maamulaa baanka ganacsiga ee wadanka ku yaala shicibka lacagtooda dhigtaan sida Dar es Salaam Bank Premium Bank Dahabshiil Bank bangiyadaasi waxay dhigtaan bankiga dhexe lacag damaanada lacagtaasi waxa weeye lacagtaasi si sixir bararka loo yareeyo percentiga laga qaadayo lacagta damaanada laga qaadayo waa in kolba percentiga la kordhiyaa markasta uu sixir barar dhaco si loo yareeyo si lacagtan faraha badan leh ee commercial banks ay helayaan iyo lacagta ka taala ay isugu dhigmaan maanta ma jirto Somaliland markaad eegto lacagta bangiyada u taala bangiyadan diiba ay kacaan maanta oo bankigu kaco qasaaraha inta la dawladdu madaxa uma dhigan karto bangiyadii kalena in ilaahay uu ka baqdaan mooyaane wax kale oo ay sameyn karaan ma jiraan oo dubanku kaco
dee bangiga dhexe bangigii institutionka uu ku shaqeynaya gacanta ku hayn lahaa central bank ku noqon lahaa central bankuna maaha wax jiro oo shaqeynayaba mida kale waxaa jirta interest rate waxaa jira interest rate shaqada saddexaad ee bangigu qabtaa waxa weeye bangiyada ganacsiga waxa uu siiyaa lacag deyna muddo kooban maalin ama 2 cishaa lacagtaa uu siinayaa waxa weeye maalin ama 2 lacagtaa uu siinayaa waxa weeye waa lacag uu percent saaranayo imka 12 milyan oo kale ayuu amaah ku bixinayaa bangigu oo qof ama ganacsada ama bangiyada commercial bankska ayuu ka iibinayaa markuu ka iibiyo isagu waa inuu helaa lacag dheeriyo oo extra profit ayuu helayaa oo 12 milyan lacagta uu helayaa waxay u saamaxaysaa bangiga inuu profit sameeyo isaga laftiisa oo lacag helo taafraad waxa weeye open market operation ku waxa weeye waa shaqada afraad oo bangigu dhexe qabto waa inay waraaqo sida lacagta oo kala shirkada ama dawladda deyn qaadanaya soo saaraan ay ka iibsadaan interest rate tusaara waxa soo qaada dawladda Soomaaliland inay doonayso inay shacabka ama shirkadaha deyn ka qaadato waxa dhici karta markaas oo kale in ay dawladda Soomaaliland oo kale central bank marka uu doonayo inuu lacag si investment u sameeyo uu soo qaato ama lacagta tayadeeda ugu ilaaliyo lacagtii dhamaan lacagtii wadanka ku jirtay oo dhan bangiga dhexe markuu dalka dhaqaalihiisa kor u kacsan yahay lacagta faraha badan leh lacag badan baa lagu soo deynayaa suuqa marka uu dhaqaaluhu hoos u dhaco ee wadanka uu inflation dhaco lacag badan baa suuqa laga saaraya walka mushkiladda ugu weyn ka jirta waxa weeye lacag badan baa suuqa qiimka soo gashay dhaqaalihiina aad buu hooseeyaa waxa ugu badan ee dhimaanka jiraana waxa weeye dollarkii suuqa ku yaraaday dollarku markuu suuqa ku yaraadana waxa dhacaysa in dhimaan of dollarkii uu bato oo labada lacag iyo dual currencies-ka ee suuqa ku wada jira in la kala xadeeyay in lacagtan hard currency-ga bangiga lagu ilaaliyo si tayo ay u yeelato lacagta wadanka mushkiladda ugu weyn waxa weeye labadii lacagyo oo dukaanka wax laga wada iibsanayo oo bakhaarkii wax laga iibsanayo markaan doonayo inaan uu shaah iibsado kale store bank ku cabaya lacagtu ma baahniba marka bangiga dhexe waxa weeye inuu isagu lacagtii tayeeyo oo uu ku qasbo dadka oo uu aaminsiyo dadka in lacagta dalku ay qiimo badan tahay lacagta kale si aanay lacagteenu u bahdilmin oo aanay meesha uga bixin imka waxaad arkaysaa suuqa markaad meherada aragto inta ugu badan doolar baa wax lagu diraya cash duwa yartayba ama wax saa si value lama value waxa ka qaaday waxa weeye commercial banki tayan lahaa lacagtan si ay dadka ku dhiirigelin lahaa ayaan jirinba hawa yaraatay wuxuu qabtaana aanay jirinba mid kale waxa weeye lacag badan oo hard currency dalka ma soo galaan ganacsiyadii ugu badnaa ninka ganacsadaha maanta dalka jooga lacagta hard currency-ga isaga urursado siisu urursado bangiga dhexe ama central bank wuxuu sameeyaa lacagtiisii alaabtiisii wuxuu ku iibinayaa dollar iskuuladii waxa laga qaaday ardaydii dollar meelihii ganacsiyadii businesskii oo kale dollar marka waxa weeye laba lacagiyo dalku ma isticmaali karo waa culays marka wax meesha ka baxaysa way noqonaysaa in dalka dollarization loo bedelo oo dollar wax lagu kala iibsado marka caqabadda ugu weyn waxa weeye dollar aynaan lahayn oo suuqii wax lagu iibsanayo dollar kaasoo keenay baahi fara badan in loo bahaleeyo oo sidii lacagtii loo soo daabacayo kale baahi Soomaaliland shilinkii loo qabay oo kale loogu qabo dollarkii marka waxa weeye Mareykankii ma nihin dollarka inta la egda ma heli karayno marka waxa weeye dawladdu inay tayeeso lacagteena si lacagteena ay qiimo u yeelato lacagtu waxay ka turjuntaa hadba qiimaha ay leedahay dawladdaasi dawladdii haddii ay qiimaheedu dawladda haddii ay fadhiitay aad u liidato lacagteeduna aad bay u liidanaysaa imka dollarku wuxuu marayaa halkii dollar 10,000 shilin oo qalba oo flexible maaho maalinba meel buu tagayaa oo wax flexible isbedelayo maalinba meel tagayaa in fixer laga dhigo meel la istaajiyo horta waxa weeye ma dhacayso marka dhaqaalaha aad eegta caalamka halku wadamadii
1997 kii oo kale halku taagnaa markaad eegto intuu ka dhaqaaqay wax saa u sii buuran maaha marka Soomaaliland eegto halku ka soo dhaqaaqay intii imika xukuumadda Axmed soo kaliya hadaad eegto in badan baa ayuu doorku kor u kacay 6,000 ka soo dhaqaaqay maanta waxa tamanku nagu maraya impossible way caalamka ku tan shilba laga mudaharaado oo laga qaybiya inagana maanta doorka halkaas uu nagu maraya marka waxa weeye dawladdu wax cursa iyada cursa xeerarka soo cursa oo baarlamaanka u gudbisa xeerkii bangiga dhexe lagu maamulayay ma jiraba haba yaraatee xeer lagu maamulaana ma jiro maanta marka waxa weeye bangiga dhexe dalku haduu shaqeyn waayo waana meelaha kamida dawladnimada waa meelaha laga qiimeeyo institutionally qaranka Soomaaliland waa meesha uu tabeeyo ee aanu wali ka dhismin waana rukun kamida rukumada ay dawladuhu lagu qiimeeyo marka bangiga dhexe uu sida ku sii socdo aan wax institutiona ama xeero u dejisan aanu jirin uu saa ku sii socdo waxay noqonaysaa in doorku kolba maalmo inta doono nagu tago maalin saaka oo kale wuxuu 10,000 bari toolo 12,000 oo saa dambe doorkii waxa gacanta ku haya nima sariflayaalo oo doonayay inay qiimihii iyagu sargooyaan halkii sariflayaashu waxay hayaan shaqadii bangiga dhexe qaban lahaa bangiga dhexe wuxuu qabtaa inuu lacagta isagu sarifo oo lacagta isagu laga soo sarifto halka maanta sariflayaal ay shaqadiisii hayaan marka waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay central banka fadhiidka noqday in laga shaqaysiiyo si lacagteenu ay u yeelato tayo فأنت تنقصوك بالقبيلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.